ayadoo dil magaalada Galkacyo lagu geystay wadaad caan ka ahaa magaalada Galkacyo laguna magacaabo jiray Sheekh Cali Dheer ay ka dhalatay buuq iyo shaqaqooyin maalmihii dambe ka taagnaa magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaan xaaladii u dambeeyay magaalada Galkacyo saacado ka hor aan wareysi kala yeeshay wariyaha Sooyaal TV Galkacyo uga soo warrama Maxamed Cabdullaahi Siidi Maxamed soo dhawow waa maasantahay mahad magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa shalay soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaasoo ka soo kicitimay safar dhanka Luutan aga soo baxay magaalada Dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha ayaa halkan u soo gaaray inuu qayb ka qaato si loo xalin lahaa dil dhawaan ka dhacay magaalada Galkacyo oo lagu dilay Sheekh Cali Dheer oo ka mid ah culimada si weyn looga yaqaano magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug isla markaana ahaa nin ka shaqeeya arrimaha bini'aadantinimada meedka Sheekh Cali Dheer ayaa asugu wuxuu ku jira isbitaalka magaalada Galkacyo waxaana ehelka Sheekh ay sheegayaan la aasi doonin ilaa ma helo cadaalad madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wafdiga balaaran hogaaminaya oo shalay galanka dambe soo gaaray magaalada ayaa waxa ay kulamo leeyihiin odayaasha iyo cuqaasha wax garadka magaalada Galkacyo kulamadaas oo diiradda lagu saarayo sidii markaasi xal kaba dambaysa looga gaari lahaa loona soo gabagabayn lahaa sheekhana loo aasi lahaa